وأدبتنا أنا نول بيقول هذا مو بنت marka waan maqlay laakiin aniga aakhiradu bay si xasuusiyeen iyakana ilaahay ha u daba dhaaf aamin dhahada dhalinyarnimada Allah gashay Allah anaga xageega waa cafis ilaahayna ha u daba dhaaf Allahu zamankan waa cajiib weeyaan marka buu nabigu macneeyo xishoodka ilaahay jalla wa ala la doonayo adoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxaya wixii uu weeleeyay inaad ilaalisid calooshii hareerahiga wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo birbirkeega uu ka tagaa buu rasuulku yidhi الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلهي بانكم هذين إله صلاة مغرب جماعي نقص وقيب قليي waa nicmo ilaahay na siiyey inaan ilaahay ugu mahadnaqno weeyaan wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi ilaahay casa wajalla nicamtiisa haddaan isnidhaana tiriyo tiro ku soo kooba ma soo koobi karayn halka insaankan uu yahay daluum in naftiisana dulmiyey oo dulmi geysto badan kafaara oo ilaahay nicamtiisiina qariyey oo daboolay wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa wa ina allaha lagafuurun raxiim waa laba aayadood labada aayadood inta hore waa isku macno weeyaan laakiin inta dambe waa kala macnahooga waa kala duwan yahay aayadda hore wuxuu ilaahay ku sheegay insaanka ayaa la sifeeyey waa daluum waa mid dulmi geysto badan oo naftiisii dulmiyey oo xaqii naftiisu ay lahayd garan waayey xaqii ilaahay ku lahaana garan waayey xuquuqda bini aadankana garan waayey dulmi geysta badana weeyaan waa kafaar weeyaanoo ilaahay casa wajalla nicamtiisiina uu qariyey oo uu daboolay halkii nicmadda loogu talagalay taacadda ilaahay in loo adeegsadana insaanka badankii nicamta ilaahay waxay u adeegsadaan cisyaanka ilaahay aayaddaasi waa sidaa weeyaan tarjamadeeda luqada soomaaliga ah aayadda labaadna waxa weeyaan waa tii ku taallay suuratu naxl wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa wa ina allaha lagafuurun raxiim ilaahay nicamtiisa haddaad tiraadaan tiro ku soo kooba baa ilaahay ma soo koobi karaysaan laakiin allaha ini uumay ee iska kiin leh waa dhaafid badana naxariis badan weeyaan halka horena waxaa la yidhi insaankaa la sifeeyey oo sifaadka insaanku ay leeyihiin baa la sheegay aayaddan dambena wuxuu ilaahay sheegay sifaadka ilaahay baa lagu caddeeyey oo waxaa lagu leeyahay haddaad adigu aad tahay daluum dulmi geysta badane ilaahay nicmadiisana inkiray oo daboolay haddii aad tahay haquusan halka rabbigaana uu yahay dhaafid badane naxariis badan weeyaan isaguna
rabbiga allaha kuleh ee noloshaad haysata kugu deeqay ee inaad dhimanaysana kugu xakumay ee meelaad uga baxsatana aynan jirin naxariistiisa marna ha ka quusan waayo adigu daluum kafaara haddaad tahay isaguna waa ghafuurun raxiim weeyaan ghafuur dhaafid badana weeyaan dembi kastoo dadku ay galaan hadday ka soo noqdaan waa ka dhaafaa waa naxariis badane oo naxariistiisu waa waasic waraxmatii wasicat kulla shay ilaahay baa naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaaratay baa ilaahay yidhi xadiis alqudsina ilaahay waa kii lahaa ina raxmatii taglibu ghadabii naxariistayda ayaa ka qaalib noqotoo ka adkaatay baa ilaahay yidhi cadhadayda walka ilaahay naxariistiisa waan u baahannahay inuu inoo dembi dhaafana waan u baahannahay inuu inoo naxariisto waan u baahannahay allah inoo dembi dhaafo allahana inoo naxariisto marka naxariista ilaahay caza wajalla ayaanu maskiidka ku soo gallay ilaahay waa inoo nicmeeyey waxaan isku baraarujinaynaa ee ugu horreeya waxa weeyaan waa alla ka cabsi inaan ilaahay ka baqno ilaahay cabsidiisu waa dardaarankii ilaahay jalla wacalaa ummadihii inaga horreeyey oo kula dardaarmay innakana laynagala dardaarmin weeyaan fi suurati annisaa ilaahay waa kii lahaa walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaa aakhiri alaaya ininka iyo kuwii inaga horreeyey helal kitaabkii ee diimaha aan u soo dejinnay intaba waxaanu kula dardaarannay baa ilaahay yidhi inay dadku ilaahay abuuray ay ka baqaan ilaahay ka cabsadaan taqwaduna macnaha ugu yaray culummada islaamku ay saareen waxa weeyaan wixii macruufa ilaahay ku farayna la kaalay wixii munkare ilaahay jalla wacalaa iyo sharcigiisu ay kaa joojiyeen ka joogso ilaahay nicmadiisa ha u adeegsan maaragtaane cisyaanka ilaahay ee nicmadda ilaahay waxaad u adeegsataa ilaahay wanaagga uu ku faray oo weliba wanaagga ilaahay uu ku faray waa wax innaka danteennaa weeyaan ilaahay marka uu ina leeyahay salaada tukada salaadu waa adiga dantaada ilaahay marka uu ina leeyahay anigay aaminoo i rumaysta iimaankaasi waa adi dantaada ilaahay caza wajalla marka uu ina leeyahay masaajidda ku soo xidhnaadoo kaalaya waa wax adiga dantaada lagu sheegayaa adigaa faqiira ayuha alinsaan adigaa faqiira asagu waa qani ilaahay adigaa daciif oo taag yar asaguse waa qawi alqawiy waa ilaahay caza wajalla adigu makhluuq baa tahay asaguna waa kii ku abuurtay iska kaa lahaa marka ilaahay naxariistiisa marna ka maarmi mayno dadkao dhan ilaahay wada caabudaanna waxba ilaahay uma biirinayaan hadday ilaahay wada caasiyaanna waxba ilaahay kama naaqusmayaan ilaahay waa qani istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ilaahay caza wajalla ka xishooda buu nebigu xishoodka ilaahay xaqa uu lahaa inaad ka xishootaan buu nebigu yihi ka xishooda ilaahay saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah innaa nastaxyi walxamdu lilaah rasuulki ilaahayow annagu ilaahay waanu ka xishoonnaa ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa bay saxaabadu yidhaahdeen ilaahayna waa ka xishoonnaa dadka lalahaa ilaahay ka xishooda maaha innaka oo keliya magaalada hadalkaa lagu lahaana magaaladeennan maaha magaalada hadalkaa uu ku dhex lahaa nebigu waa madiinata almunawara dadka erayadaa uu nebigu ku lahaana waa asxaabtiisii weeyaan asxaabu muxamadin sala allahu calayhi wasalam waa dadka qur-aanka sifaadkoogii wanaagsanaa lagu sheegay ayakoo adduunka dusheeda socdana layidhi ilaahay baa raalli iniga noqday ininka waa dadkaa dadku nebi maxamed uu ku leeyahay istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xishoodkii ilaahay jalla wacalaa uu inigu lahaa inaad xaqnimo uga xishootaan uga xishooda buu rasuulku yidhi deedna saxaabadu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah ilaahay waan ka xishoonnaa ilaahay waanan ku xamdinaa ilaahay oo ilaahayna waan ugu mahadinaynaa bay yidhahdeen asxaabtu markaa buu nebigu macneeyey xishoodka ilaahay jalla wacalaa la doonayo
addoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxa iyo wixii uu weeleeyey inaad ilaalisid calooshii iyo hareerahiga wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo birbirkeega uu ka tagaa buu rasuulku yidhi an taxfada alra'sa wamaa xawaa an taxfada alra's madaxa inaad ilaalisid madaxa maxaa ku yaalla xubnaha jir bini aadamku ay leeyihiin xubnaha ugu qiimo badan baa madaxa ku yaalla araggii baa ku yaalla aragga ilaahay ku siiye kaga xisho maqalkii baa ku yaalla maqalka ilaahay kaga xisho carabkii baa ku yaalla carabkaaga markaad hadlaysa hadalkaaga ilaahay kaga xisho maskaxdii baa ku taalla caqligaaga ilaahay ku abuura kaga xisho waa inaad ilaalisaa xubnahaas waa xubno muhiima ilaahay baa ku siiyo kugu deeqay inuu kaa qaadana ilaahay waa karaayo ugu ilaahay uu karaa dad badanoo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaasoo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan araggii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxau ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhegaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalle ilaahay uu raalli ku ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmada ay haysteen oo dhan waxaa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay caza wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay muxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu karay ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ila dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegno wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysa adigoo iska indha qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxuusan ilaahay jalla wacala uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun gayru allahi yaatiikum bihi ilaa aakhiri alaaya bal ka warrama baa ilaahayna leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku yidhi u sheeg bani aadamka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay jalla wacala uu karaaye hadduu aragga inigala tago oo maqalka uu iniga qaado oo quluubtiinna ilaahay taabacuu u fulo ayaa iniga soo qaadi kara ilaahay nicmaddaas uu karaa ilaahay hal mar keliya dadka inuu aragga kala tago ilaahay waa karaa oo magaalada waagu u baryo dadka oo 80% wada indhoolayaala yaa kuu adeegi yaa dhariga kuu karin xanuunkii kaduudiyaha ahaa ee dadka jijabinayay ayaa reer buu ku dhacay odaygii buu ku dhacay islaantii buu ku dhacay inantii buu ku dhacay shaaqiyadii buu ku dhacay tuug baa u soo dhacay reerkii oo wada kici kari la ayaguna wax biyo u soo dhaamiyay doonayaan islaantii baa aragtay tuug aqalkii alaabta guranaya markaa bay tiri hooye waxaad doonta iska guro biyaha u dhawaraabi bay ku tidhi waa kaduudiye waa xanuun halisa weyn ilaahay haynaga hayo aamin dhahada waa dhoweytuu jabuuti soo maro dadku aqalladiiba ka bixi kari waayeen xubnihii unbaa shaqayn waayey markaasuu qofku noqda caag gebigiisiiba caag meel fadhiya oo weliba xanuunsan oo laxawsan oo dhaqaaqi karayn markaasee tuuggii baa madad laga dalbay madad iyo gargaar oo le walba noo gurmo oo waxaad doonta iska qaado oo bal maaragtaane biyana waraabi markaasuu ka naxay baa laydhi isagii baaba ilaahay qalbigiisa naxariis soo geliyey wuxuu idhi war kuwan haddaad wax ka qaadato aday balaayadu kugu dhiciye bal biyaha iska warwaraabi biyihii buu waraabiyey kii baytalmayga doonayuu baytalmayga geeyey jaarkiibuu u tego wuxuu ku yidhi war dadka xaafadan kaduudiya ku dhacee u gurmado wax u qabto cid dheriga u karisa u diray buu yidhi anigu waa ka tegey bal ka warrama ilaahay tabaaraka wa tacaala maqalka hadduu dadka ka wada qaado habeen keliya laakiin inta badan dadku maanta maqalkii waxaan u adeegsanay wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn araggii waxaa loo adeegsaday inta badan waxuusan ilaahay raalli ka ahayn carabkeennii waxaan ku hadlaynaa waxuusan ilaahay raalli ka ahayn weliba waa ilowsannahay aalaadkan inagu rakiban inay kaamera ay leeyihiin ay wax duubayaan
ومالك قيامها أي ورمي دونان بك قيامنا ذاتك إنت بدل ما أنت ويلوسيين إشان لأن أنا وحنا واتكو إيجاسا يدا لفت يجو وحبيت دوبة ساي الله صعود هذا وحني مكان بسول جديد سنة وحوض الضوبة يعني أدوت الله صبح وتفرد دونتا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مالك قيامها وحي إلهي ونوغشيغي أعداد إلهي عز وجل ذاتك أديود دوشيغي انتي جوغين أعداد إلهي أها بانك قيامها يا الله سوجو جندونا والله كيني دونا يكون ملائكتو حقا دمائكا دراعيسو مركاسا إلهي مركا بانك قياما الله كينو وحا مرقا كبو حني دونا أرقوغي يمقلقوغي جركوغي مركاسا الأورن دونان أيا بانك قياما مركا كدقاقان النار تلقوة الطورو أفكوها الليين الله فرو أيا أورن دونان محانو مرخاتي فرتين ومرقا أنو حسين أنا أقول إنك أني قرن إنني أستوريني مرقا قاعدتي اللوكتي أيا ديمتي وهذا شعورنيسا يدكتي إشيما هل شعورنيسا أنا كوس كمان نهلن ما نهلن جرون وانو قيديني كواح والله بكا اللي ما تلقاها اللي يبي أورنيا أسواكما الله رب العالمين إلهي بكا دواجي مرقا أورنا أساقا إن السمايو إن أبو ري أساقنا حقي سوادو صور نقطين حشود إلهي ودب لوغا حشود وحو نبيكو كم معنى عليه الصلاة والسلام مدح يوحي هريري كو يالا إلا إلاليو ولغا إلاليو مارتانا إلهي عصيان كيسا علوشا يوحي هريري ومحي علوشا هذا إلى مارتانا مرول باتكا إلالي سال لغمد حارانا خاصة ناد مساجد كانن سوق بنعسك أيو كبحي الله لكن وحني حسوسنا يا مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يري كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة من الحرام أن ندركه مخافة أن يدركنا الحرام وحول أبي بكر الصديق تضبات الباب تضبات كالباب كسب قودو ويهي حلال أيان أبتغي نبويري أنك وكبغين هالك حرانين نغسو وحوال بعلوش كرد معها ألقى واحد مرينيسو وإنه هذا وحلالا هذا الحلال عناء نقطه عابد بان نقونيسا كن ورعا تكون عابدا بن أبا هريرة رضي الله عنه وهذا نقطه قف حلال مرتاع وحلال عناء نقو ذاتك نك أبو عبادة في عم بان نقونيه وقولك نبينا عليه الصلاة والسلام ياها اتق المحارم تكون أعبد الناس وحي إلهي كاحرمي ونكدروا ذاتك قفك وقو عبادة الصوبانة وقو عبادة في عم بان ساي عبادة عابد نمدو ماها سيدا اللوكال الصلاة بدن يهي ماها سيدا اللوكال الصوم بدن يهي ماها سيدا اللوكال القرآن أخرس بدن يهي ماها سيدا اللوكال حج بدن يهي ماها سيدا اللوكال عمر بدن يهي بل عابد نمدو وحويان وسيدا اللوكال ورعصي يهي ويان ورع عنادها تقف على المرتاع تضباطا كسبي وتضباطا كوب أي حلال أيهين أي أبو بكر صديق وحولي أيان اسكت دافيني أنا وكبغينا المساس حران إني نغسوك شانا وكبغينا علوش إلالي وحاران كإلالي وحق الناس كإلالي حسان بن أبي سليمان سلف هذه الأمة بكمدها وننك اللي يري تضباط لحظة السنة بين عبدالك مدقين أبو جيفانا يو فدقو كسي حنايي لحظة كاس النظر نافش لسنتو قورا عدي عدفي سمعون لحظة كاس النظر بيم معانو نفتو أيضا تمسيني عنتدنا إرقكسن بلا دفنك أيو عنايي هرددنا فدق أيو كسي حنايي بيها بيلك كل أيو عب جري مالنتو بنتينا وحالقو أركي منام بالقو أركو لقو يري يا حسان ما فعل الله بك من وراقي خير لغو أركول لغو يقانو وخير لغو تومي عيادة هيدي ربك محاد كلاكو لنتي بالنوشي مرقاو ربك خير بان كلاكو المي لكن وان حب السنة وجلدي مقليني
albaabka jannada laygu hayaa buuri weli ma gelin jannadii markaasaa lagu yidhi maxaa jannada aad u geli weyday oo lagaaga hayo oo lagaaga xabisay bal noo sheeg wuxuu yidhi aqalka dariskayga ah ayaan ibradda maaragtaane warqadaha kutubta marka qoro kutubta markaan baabo aan sannifo warqadaha kutubta irbaddan ku qoraayey ayaan jaarkayga ka soo qaato ka soo caariyaystay anoo aanan celin ayay naftu iga baxday xaq bini aadan intaabaa i soo gashay intaabaana jannadii laygaga xabiso albaabka jannada laygu hayaa buu yidhi waa irbad yar ayaa jannadii looga xabaasay ninka caabidka ahaa ee 60 sano salaata leyl aanan ka tegin jiif dhinacana dhulka aanan dhigin hadduu seexanayo baa laydhi ama gidaar ama derbi buu ku tiirsanayey oo tiir buu ku tiirsanayey ama fadhiga tarabbuca laydhaa buu ku seexanayay baa layidhi irbad yar baa loo xabisay oo jannadii looga xeliyey marka ayuha almuslim khusuusan ayuha taajir ayuha almuslim xaquuqda bini aadamka aan iska ilaalino nabigu sala allahu calayh wasalam ghazawaadkiisii ghaswad ka mid a inay uxud ahayd baan u malaynayaa ayaa saxaabadu yidhahdeen ninkaasi waa shahiid waa shahiid waa shahiid markaa buu nabigu uhi kallaa innii ra'aytuhu fi nnaar buu nabigu uhi kallaa inuu janno galo oo uu shahiid noqdo iska daaye asagoo naarta ku jiraan arkay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu ku jiray oo lay tusay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa ninka dagaalkii balaayuu ahaa xagga dagaalkaoo gaalo badan buu laayey oo saxaabada agtooda shahiid buu ahaa janno galay oo shuhadada waad garanaysaan walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illah bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ilaa aakhir alaayaat ayaa ilaahay ku sheegoo la yidhi inay dhinteen ha u manaynina maxaa yeelay shahiidka gaalada gacantooda ku dhintay ee dagaalka jihaadka dhexdiisa ku dhintay waxau arwaaxdiisu ila agtiisay taalla kaabuu nabi maxamed uu leeyahay may shahiid maaha hadduu xaggiina shahiid ka qoran yahay xaggayga waa ahlannaar buu nebigu naarta ayaa ku arkay isagoo ku jira waa la baaray ninka dharkiisii iyo badeecadiisii baa la baaray xoolaha muslimiintu ay soo khaniimaysteen waxay ahayd nebiga in loo keeno oo nebigu si cadaaladla uu dadka muslimiinta uu ugu qaybiyo ayay ahayd inta aan nebiga loo keenin ee qismadii nebigu aynan dhicin ayuu go'ii u fiicnaa buu kala hadhay oo gogashiisa ayuu ku dhex ritay intaasuu naar ku galay baa la yidhi ninkaas intaabuu naar ku mutaystay xaqa ilaahay uu kugu leeyahay hadduu doono ilaahay uu kugu cadaabi hadduu ilaahay doono uu kaa dambe dhaafi uu kaa dhaafi karaa laakiin xaqa bini aadanka inaad celisid mooyaane ilaahay dhaafi maayo baa la yidhi marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono hanu toobadkeenna ilaahay ku saliya rasuulka waa dhubatana anoo nool bay gu yidhahdeen uu dhintay marka waan maqlay laakiin aniga aakhirada unbay sii xasuusiyeen iyakana ilaahay ha u dambe dhaaf aamiin dhahda dhallinyarnimada la gashay allah annaga xaggeega waa cafis ilaahayna ha u dambe dhaaf allahu akbar zamankan waa cajiib weeyaan caloosha iyo hareerahayga wixii ahaaday waa in la ilaaliyo man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ayaa ii damaano qaadaya buu nabigu uhi ii ballan qaadiy oo ila ballami oo ilaalinaya buu nabigu leeyahay labada daan dhexdooda wixii ahaaday waa carabkaa yar ayaa ilaalin labada lugood dhexdooda wixii ahaadayna waa farjiga labada ayaa ilaalin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oon aniguna janno ugu ballan qaadaa ballankaa nebi maxamed baa inoo qaaday ma ilaalinaa insha allah dhahada majmuciinu dhallinyaraad u badan tihiin haddii aad labadaa haddaad ilaalisid carabkana waxaa lagu dabraa waa dikriga ilaahay farjigaagana waxaa lagu dabraa maaragtaan imaa waa soonka badso imaa guur xalaala iska guursa arsaaqada ilahay baa ku siinaye
عربك محل ودبرا يا لا يزال لسانك رب بذكر الله عربك وحل لقو دبرا إلهي حسكيس استغفارت بدي ذكرك إلهي بدي دعوتك الشغل من يرى الدعاء لا صلاة المسكين خيرك وياك فرجك وحل لقو دبرا ويوم النبي صلى الله عليه وسلم أسقط دليرة الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا أورك دليرة يسوع النبي باء قدر يا يوليه أورك دليرة النبي الله الله حيري نكي كرا ينو قرصدو النبي عليه الصلاة والسلام وفق مرقو قرصدو دين دي سي كالبات بوسو غاري كالبات كلام إلهي يحكم بغابو النبي حديث كالكوي قرقاس فرجك هذا وكو إلى يا إن هذا وكو حفظ يا هذا كريم وأودي اللي قرصنا ما أنت أنا هاي سننا وعد كده دا شامارك ثاني صون كابو نبي قد بتصو اثنين دي خميس الله صوما أيام البيت كالله صوما صون كوا تربية ويان يكسر الشهوة عائشة رضي الله عنها واتي ورجرتي بدعتي وبوها الرئيسين ومد النبي محمد كل عبي نبي قد بدي ودرجة بيتر ودرجة ومرك يدرجاني على وشاي بوحيان ويش الشلادار وجركوك أيا عيلة شهوة دودنا ويك كعدا لأنه ويك قوقدا وشهوة دودنا أيا كعدا يخيل دودنا ويك ضعيف تابع تجي درجة بدل شهوة دا أيوك عيا قاجدنا شهوة دا ويك جبسا لذلك الصوك هو علاج ويان شهوات كاغا واحد جبينيا والصوك ويان وإلا حداد زواج كرس إلى قرصتنا قورك إلهي ما ينوفو دي اسكت قرصة أو قرصة كبدا دين تلو قرصة تهد قرصة تقروح ذا بدل له ما يهيجن فاظفر بذات الدين تربت يداك أبو النبي عليه الصلاة والسلام وروحها يهيجن نصبها يهيجن دقالها يهيجن دقالها كو قادن وروحنا كو قادن ريرنا كو قادن هذا صدق هذا قبضة أذكر كأج أساس هذا قدك تا وأتكلم بقولي أقول وعاد قال تاب النبي بقولي قبضة دين تلقاه أنس بن عمار الأسمعي هيا لويري أبيه بأويرو كويري قلبت عروس باته صوم يرود ديار جروب الويري وأنا دليرة وقروح بدن بريء دليرة ما هساوي نيم كأنك واسكها سوداء زمان كان دليرة دوا بلا يا دوية كده العادي دس قبرية وأسترنا يا لو إن كنا دتك سوالد كأم بكور سجاي إن ترى والد دليل بكور سجايسي مركز سوكني لأبو إنهم باقوسه الله عروس باته عقد جينا إما كان سمين الناس سود يرجعون مركز صاحره مركز بصاحر ده قاضي جيبا يمدو قبضي والله بحيوه الكدين ويجوجا عقد جيبا دعي سلاح من جيبا قبضي والله ورجيه قال كي قبض عروسته أي كتير تمرك وصو قلي وعين نقطة قبضي يراكوسا أو يسقى على العجبين يسقى لكن ونندر أو عبد أو قروح بدن ما شاء الله يدي لكن وحين نقطة يرى قابا أو يركوسا أو يسقى على العجبين اللي دائما دل يرون ما يجعله يا قبض هذا يرون ما أنت أي جعله وقبض ودون يسد يسقى ودون يلقوا أبوره مركو قلب وارك قبضي يدنا ويكفر أحد إنك قروح دي سي صورة دي سي سقي لكن ما عجبني مركب بيكوتري هنحن بيكوتري همرجن خير بالله يا أبا إلهي ويك صادح مريا همرجون بيكوتري مركزو هذا الكيجي وكفر حوله سيري كل هو هداية أبها قبضها وحي كوجود دورين وخير كوجهين إلهي عز وجل طاعة والد كاجا كوجه جن معي والد كاجا إسكاد أو إسكبر كيسو أبين كيبوه الرسول عروس قلي أيا إلهي دعادي وأقبلوا على شيء بس لما رجع إلهي المودجي علمه وحور نقضي إمام مالك بن أنس مودل نكاس إمام مالك بن أنس ماذا بقينا الشافعي يا شيخ إن إمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله معلم كي علم الحديث كي كتبته أو كبرتي أي ويل كي يرى دليل أي ويل كي دليل يردها وهو كبرتي إمام دار الهجرة إمام حداد قبل الدين تلاعات دورتد أولاد بركيسون وعلماء
وإلى قيامها أذكر كوسو دعيسا إلى قيامها علمي وأمد وأي انتفاعسته أيا إلهي كوسو نحمرين إياه لذلك فرجينا وحكول علينا إنا والصونك يقولك حلاشا عربينا وحكول علينا إنا وإلهي ذكرك سيء مارتان عبادته يدينته من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نبي صلى الله عليه وسلم حيري أي إيك ضمان قاضيا لبدا دان بحدو دوحي هذا عربك يا لبدا لغو بحدو دوحي هذا فرجك أي لبدا إلى لب النبي محمد وليه هاي ورنبو marka qofka ilaahay ka xishoonaya waa inuu awradiisa ilaaliya waa inuu carabkiisa ilaaliya waa inuu aragiisa ilaaliya waa inuu maqalkiisa ilaaliya waa inuu hadalkiisa ilaaliya waa inuu aqligiisa ilaaliya waman arada al-aakhirata taraka zinata ad-dunya qofka aakhira doonka buu nabigu leeyahay zinada adduunyada uu ka tagaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam aakhira doon hadaa tahay adduunyada zinadeeda ma jeclaanaysi ونبينا ديدي عليه الصلاة والسلام الدويدة إنكو الدويدة ورادنينا ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الدويدة نبي محمد إيدا أيار رادين يسود دون يسي والله بندق نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل بسود دقى عليه السلام نبي السماد كما قال الشنقد يا جبريل شنقد دا سوا محي وملك بويد وملك الباب جنة وإليه هذا الباب سمد وإليه هذا ما تلفري الباب قام ما تكور لما فرن بنبي يوري جبريل ملك بكسر دقي ملك قاسم ما تكور الله ده ما يقوم بنبي يقول عليه الصلاة والسلام وكان ملك يا سلام وملك إلى هاي الصدري مالك قاين تكور رسم ملك قاسي أدونك عجاه مسور دقين الباب كسمد كوي الله مالك تعالى فرينا مالك تكور الباب قال لما فرن ملك يبقى النبي السلام عليه الصلاة والسلام مركز يا محمد رب قام السلام كجسدا رب العزة وحو كليه هاي لبك الدورة هيا اللي قال لبك الدورة لبا متكوت قاضو أنا جعلك عبد الرسول أو ملك الرسول لبا متك الدورة بوحا كادق نام رب دا كليه هاي بقر بان كادقنا بقر الدون كودن لملك السيئي والنبي نمتنا ودرتاي والرسول مسوحا كادقنا الدون إلهي ومسكينة ومالنا عنايا مالنا قضايا والنبي والرسول لبدا كلا دوربا النبي قال عليه الصلاة والسلام نبي قرار كي يقعد كلي ما قادره وعاو نبي قال صاحب جبريل قال صاحب جبريل نبي وصداه قال جبريل باكو يري تواضع لربك يا محمد ربك ما دام كوبا لبدا الريموت هي دول اسمك سمايو ربك دولك اسكدك بوروت بمعنى تسرسها قادمه تهوسيسا قادبا لويدي بقورتويدا اي نبي نمدا بقورتويدا اي لا سوتها قادم ويان اي waxaad qaadata nabi nimada maaragtay miskiin nimada kulli faaqsan labada qaalaba nabiga lagu yiri alayhi salaatu wasalaam markaas uu yiri ayuha almalak bal abd ar-rasul waxaan qaatay oo doortay inaan ahaado adoon ilaahay oo ergadiisi oo rasuulkiisi زينة الدنيا النبي قال لي ما كتب عليه الصلاة والسلام لكن الدنيا ده قال الله إيمانت الدنيا ده قلبي نكوينات ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تواضع ما نقول ربك أو تواضع وصاحبك جبريل عليه السلام آيات الله عجيبة السيو كويري تواضع لربك برقاب النبي يقول الدون رسولها اللي يقدقوا الدون رسولها ومحي معنيه يقول وكمالنا يقول وانقضي ومالنا تقضن إلهي وانويدي سنيا مالنا وحن عنا آيان هليا مالنا وحن عنا هلنا إلهي وكم هذا رسول كويري أقل لديس أي يمجر صلاة الفجر مركو قبح وقت الإشراق عائشة رضي الله عنها النبي قلت جري وحلا عنا الله قلت أقل كما يالان ما يا رسول الله ما يالان مرقاب النبي يقول هاي حفصه تجايا أم المؤمنين وحلا عنا أقل كاغا ما أنت ما يالان وما هيسا ما يا رسول الله بيم ما هنا باب ما يالو مرقاب أم سلمة تجايا وحلا عنا ما يالان ما يالان مرقاب النبي يقول رجل اسكب الداية وما صومنا هاي
بدأ وصومنا هاي خلاص صوم كسوس كودا جل عمتدا هدين السينا هدي عجب سنة وعناي هدي عجب قليم ويدنا وككعي النبي قمنا عيبين دليل لك مشيقين وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتينا هاي بالبان نوبلتي هذا باللباب هذا بشي صدحات واللحدا مع المولي اللحدا هبين أيام السومري سيتري أغلب النبي محمد بري أن دبل ساري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحل ويدي لحدا مع المولي لحدا هبين هذه بري قدب أن للسارين ومحاذ قوتين سنة تكون وليدين وعيدري لبدا من مدوما هلحونين أنكم بيها يتبرتا بيها يتبر بالعتكا لكم علوشاكو قبن ضبا كابح بربان موقتها أنكو خارجين وجماعات اللغينينا تمر باسدن مركا جماعاتي وحيد هذا تمر تنوين عصليسيسي وانا اللغو يا جماعات واللغينينا مركا جبوتي لحدة ودك لحدة هاي بري هوري مركا سان إلى تمرتها عنه بدها الرئيس جديو وحويري بل أميرو ما أنت واحد جربينا تمرتها هكو عشينه وهكو قرع عنه وهكو قضينه وبريد بان هكو قرع عنه وبلها نهجنه مركزان هاي وايه مسكون راعدين ها وانا اسكون راعني باي واي عنا تمرت مركا والله قو قرعدين بيا لعبا والله قو قديلي هذا بيا لقى دبقي هبيك مركي قال جماعات النول بيروحوا العلوش يقولوا لي ساميرو الراشيق النوكريه مركز حديث كاسان حسوسا الله اكبر لبد بلون هاي تمر يبيا ونعون يا اصحاب الرسول أبا هريرة رضي الله عنه أهل الصفي مساجد كنبي ينبي جنابه كمدها مساجد كنبي محمد كون اعتكاف جري النبي قافكي سوي كصوبع ولين جري يا أمد علمك أوريبو كمدها طبق تمر النبي الله كان عليه الصلاة والسلام مركز سوية فضالة ولا فضالة تمر تنقاضه نجيب الله تمر السيد النبي يقول رجع أهل الصفها وأرد مساجد النبي قياشي سيد جناين مقالة المدينة قرين يا قرابنا كميلة هاي هدية النبي الله كان النبي وحكى السنجري صدقتنا يكابر السنجري له أبا هريرة الله رأى لك نقضي وحويري حبت بان مركا آيان مضمود صدي حبت دي كلام هلكا بنتك آيان كل حد يقولي مركا النبي يارك عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة النبي يقولي حبت هلكا محادو قال سعيد شك وعير هو يدي بأقل كجوكتو أيضا حبتنا نقين وقودها كده تقول مانسا كان أبار بان شاقنا هنا ونلشي بقى أتكاتي بان ليناحي وشغلان بلغا عبانيا ورشغلان ما جرت درج باجر درج نعمه انتي نغا بدتي ايا شكري با يرا على شكري dadka maanta inta darag uu dhibaayo iyo inta gaajadu ay dhibayso caalamka yama badan ya daragu inta uu dhibaya badan dhakhtarada soo dhan iyo farmasiyada weydiiya doktorada wareysta dadka doktorada u tagay iska daweeya ee xanuun ka cabanaya ma dadka fuqarada mise dadka maalqabeennada war dadka xanuunada ka cabanaya maalin walba farmasiga dawo ka iibsanayay ku sii socday ka soo guraya dawada ma dadka masaakiinta gaajoonaya wadooyinka seexdaba mise waa dadka waxay cunaan intay heleen cuntadii ka badatay bal ka jawaabada waa dadka dhargi weeyaan waliba inaka dhulkeena wali balaayo nima soo garin waa nabad qabnaa jasiirat al-arab hadda tagtaan iyo wadanada Awroba iyo qaaradaha adduunka la leeyahay horumarin lagu leeyahay dadkii waxa loo sameeyo mid baabuurta ka dhaadhaco haddaad caafimaad rabtaan lugeeya haddaad caafimaad rabtaan cuntada joojiye baa lagu leeyahay cuntada yareeya reemiga iyo reemagaalka mid ka caafimaad badan sababtu maxay tahay waa cunto yareeya socod badni reemagaalka maxaa la xanuun bateen oo cunaya oo fariisanaya gacantii afkii baa kala joogsan waayay laxoox buu soo cuni uu soo kici beer buu cuni uu ka kici 11 kana hilibgeel buu cuni labadana xaafad uu tagi wixii la kariyay buu cuni haddana galabta wax cuni haddana caawi wax cuni 7 jeer buu wax cuni war magaal baad noqotay gaalada 7 calood wax ku cuntay umada xoor cunaysa ka warasada looda تعيش
حياة التعايش معها النبي محمد ومدى وحو بري نبي الصحابة ديسا وحو بري حياة المجاهدة وحاو نبي الصحابة ديسا كتر بيدي عنتيران عنتظر الله يريو إن عبادة الله بديو إنت عد الله كرديو إن الله اللون دوادو إن أدونك أويهي مال دتك بني آدم كبدغيسا أو أدونك الراحة إلى الأولم سقي ما يسكتي لي أدوية ويرمي أنا وحال قاتين أنا هذا الدور رسوله الدور رسول النبي النقضين وقاتوا عليه الصلاة والسلام بركو النبي الساقي الله بندقين وقاتي وخيار كان النبي وقاتي أي النبي صلى الله عليه وسلم ريريه السينة وهو بندقين النبي حاسس كسيبه بندقين لكن مدينة الله سوى هجرودي دقاله إسلام كو كبعي أي حاسس كالنبي وحي كو جوحين ويكوير نحن هذا القادم إن مصاريف النبي هو سمعي وريرو البابيل من الوصار اللي هو الجهادي حول الله سوهلي حولي النبي والصحابة وقيميني مركاسي أركان مقالي وكبعايا يا صحابة وماركان يبيضوا عبيريسو مركاسي قال ينضمر النبي ونحن ونتشرين نبي قادته لما بيل هالنص سمعي نبي قال الله وحي يدوح اللي يقول ينضمر كاجي الدنيا صوب شيء كيجرو قال يقول كيجرو مركاسو كهجروا النبي صلى الله عليه وسلم رئيسي مقالة مدينة وحا قال ور عجيبة ولا ليه نبي حاسس كيسي وفريبا أبي بكر الصديق أيا أتقي نتيس عائشة أبا النبي يقول كفر ما يمفرين وما حيوحنان مغلي وعيتنا إنما مفرين لكن ونقى هجروا النبي وبالهريره النوميما لقى مسوا أقوريقين ما لها سنة مسك السحدة عليه الصلاة والسلام مساجدك يا ما لها مسك بقولنا مسك السحدة نلا ما همنا هذا عمر با سعودي حفص وتقول ما له فري ما يلا يمفرن حاسس كيس النبي عين مفري ما يمفرن ما هذا عيش شيء هذنا وعيتري الديار هذا القانون ونجح هجرة النبي بركاسي أرنتي ما النبي مركب قاعدي مركب النبي حاسس كيس ويا ده هذا مركب صوت دقين آيات كوي على سورة أحزاب آيات التخيير إلا السجنة كلا دورة اللي جيني حاسس النبي محمد وحال ليه هاي أيكون هكذا الدورتان إلهي الرسول في آخرة أودنع يأدي دي الزيادة أودنع حقاتها الله بدأ من هكذا الدورتان مرقاب النبي كمل أبي عائشة رضي الله عنها عائشة واتو النبي وحاسس كي سوق جعلا مرقاب النبي وعائشة يعني عائشة كالا يقول سوف ريسو آيات كان عبد الشهيد كل صوت دقي آيات كاسنا إنك ينقص على إنك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ركاس الله يقول واحد كلا دورنا إسا إلهي يا الرسول كيسا يا دارت آخرة جنة أودنع يا الدنيا يا الزنا ده أودنع على مدى كلا دورو هذا الدنيا الزنا ده دورتنا وكفر يا سفي عنا وكفر يا حقوق واحد يقول هاي نواقصين يا الدنيا هذا والله غفر يا مركب النبي كويري ولا بيني أربعة وأن قال شدها بدك دقينة أباها أبي بكر الصديق هو يدا أتجو أرجع سوار العرس ويانه كنيجا جواك أسكت هذا إنه حكوا بودنه أرد أباها كتلا قلب النبي كويري مركب يتري يا رسول الله ما إله يا رسول كيسا يا دارت آخره أيان كلت الشنا يا بيتنا أباهي حتى جواك يجا قاتي وأنا كوش يا جواك يجا إنها يجا شيء إله يا رسول كيسي آخره أيام قاتي ما تيجي كذب بيسنا الدنيا دم هذا القاضي ما يبي كتجي مركب النبي صلى الله عليه وسلم حاسس كيسيب مد بكتجي وأبندجي سيدي السجى ملك وأبندجي أيو النبي حاسس كيسين وأبندجي مد والبواحي تري إله يا رسول كيسي آخرة أيام قادني إله يا رسول كيسي آخرة أيام قادني لأن مالك أنت كذب بيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدو عننا وإلا عنيين هدو قاجودنا وإلا قاجونيين هدو قاجك وأكسحنا وإسكاك سحنيين هدو قعنت قلينا قعنت وإلا قلينيين والنبي أود روح إلى هاي قليين هدو النبي يقول إله مقحا ذهب كدق إلهي الذهب كوا كدق كرا قعنتي سابرك لهي
Bashiir ibn Aqrab radiyallahu anhu saxaabiga la oran jiray isagoo yar buu ka sheekeeyay fi sahih al-Bukhari aabahay ghazwadii buu baxay jihaad mujaahidiintii buu raacay buu yiri markaasaan magaalada Madiina duleedkeegii baan istaagay marka ciidanku ay soo noqdeen aabahay baan ciidankii ka dhex waayay markaasaan nabiga u yimid alayhi salaatu wasalaam markaasaan surtaaga yaa rasuulallah aabahay waa kii ciidanka raacay maxaa ka reebay markaa buu nabigu iga jeestay markaa baan xagga kale istaagan ku yiri yaa rasuulallah aabahay ciidankan ula socda maxaa ka reebay markaasaan arkay nabiga ibnihiisa oo ilintu ay ka qubanayso markaasaan gartay aabahay inuu shahiiday markaa buu nabigu kor ii qaado wuxuu igu yiri yaa Bashiir maanta laga bilaabo miyaad raalli ku ahayn inuu nabi maxamed ku noqdo aabaha oo kale Aisha ay ku noqoto hooyo markaasaan idhi radiitu yaa rasuulallah raalli baan noqday raalli markaasaan idhi nabi allah carab jabaqan leehe ilaahay ii weydiiyay carabka jabaqada ilaahay inuu iga qaado markaa buu nabigu soo saaray carabkaaga waa ugu tufay nabigu sallallahu alayhi wasallam carab jabaqadii maalintii baa ugu dambaysay madaxii buu nabigu gacanta u saaray ilaa agoon buu ahaa moogtahay saxaabigaas isaga ka sheekayn doona 9 jir buu gaadhay daadiisu timaha dhan baa cadaaday baa la yiri walaakiin meesha nabigu gacanta u saaray bar madow noqotay baa la timihii waa madowgoodii nabiga karaamada ilaahay uu siiyay ee jirkiisa mucjizaadka ilaahay uu ka daahiriyay uu karayay nabigu inuu yiraahdo ilaahay reeraha igu gaajooni maayaan diintaada ka shaqeeyay dhagaxda dahabiga dhig uu karayay laakiin nabi maxamed waxa la kala dooro adduunyada oo dhinaca iyo maaragtaana iyo diin boqortooyo iyo risaalan oo dhinaca iyo adoon inaad noqoto miskiina oo nabiga kala dooro dadna nabigu wuxuu qaatay inuu noqdo adoon rasuul inuu qaato dariiqa abu nabigu innaka inoo jeexay marka adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh laakiin ha jeclaan baa lagu leeyahay adduunyada inagu dadkeenu inna way ka shaqaysataayoo way ku mashquushay inna adduunye ma hayso laakiin adduunya way jeceshahay waxaanan haynin haddaad jeclaata ka waran soo waa lima saxaabada rasuulka kuwii adduunyada haystay ayaa jeclaan waaya adduunyada kuwii adduunyada haystay may jeclaan daacadda ilaahay bay u isticmaalayeen adduunyadooda ninbaa u yimiday nin buu u yimiday ansaariya waa nin ansaariya u yimiday qisaduna waxay ku taallaa kitaabu imaam axmed masnadkiisa wuxuu beertayda geed timira oo beertaada ku yaallaan u baahanay inaan ku tallaale beertiisaa midha ficnay ee geed timira walaalisi markaa ku siin maayo geed igu bedel geed midhaha beertayda ku yaalla kuugu bedeli maayo buuri iska soco ninkii baa nabiga u sheegay sallallahu alayhi wasallam walaalkii baan halkeedoo timira weydiisto uu isiini waaye nabi allah adigu ii weydii markaa buu nabigu ninkii u yeedhay reer madiina wuxuu nabigaa ku yidhi waryaa geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga beerta hebel xiga markaa buu nabigu yidhi sii markaa buu yaa rasuulallah maya ku siin maayo markaasuu nabigu ku yidhi bicniihi binakhlatin fi ljanna geed timira oo jannada ku yaalla beer timiroo jannada ku taalla haddana ku bedelo markaa buu ku bedelan maayo iska aamusay markaa nabigu sal alla alay wasalam abu daxdax radia allaahu canhu oo meesha fadhiyey oo arrinkaa la socdoo maqlaayay ayaa ninkii iyo u tago wuxuu ku yidhi wanigoo geed timiroo beertaada ku yaallaan u baahanahe beertayda timirta intay la eg tahay oo dhan maygaga wada bedelo geedkaas inta beerteedu ay tahay oo dhan geed timiroo beertaada ku yaalla ma ku bedelan war maad igu ciyaaraysaa wallahi inay kugu ciyaarayn ee maygu bedeli hawa kugu bedeli kaala beertaydii la wareeg geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga walaalkay beertiisa xiga iigu bedel waa hagaagii qaado adiguna kaale beertii la soo wareeg abu daxdax uu soo socday islaantiisii iyo ubadkiisii oo beerta dhex jooga oo weliba aqalkuu deganaana uga dhisan yahay ayuu u qayliyo wuxuu ku yidhi ummu daxdaxayn beertan ilaahay baan xaggiisa u xawilanay aakhiradan u xawilannee ka soo dhex baxo ciyaalka ka soo saar markaabay ku tiri iyadiina
حوالة بيرتا آخرة أدنوغو حوشي والله واتكا معاشتبه كتري دكان كاقا عداتر على الإسلام تانا قلت هذا الدكان كي راي مصاريفتا أنا نوغا قادا أيضا المسكيت كوور يجي مكايا ليسا طول كابي كوكو يعني يكورن هو شيء حدا دادكو بريقا رقيا هوين اسكو أركتبه هايان داد ميل كليا وجهده بي هايان داد كاس مكلا جيدين مكلا صعون وي ودا صعدين هلك النبي محمد وجهده صحابته وجهدين هلك الصحابي وجهده أي إسلامتي يلمون وجهدين مرقابي تري واتكا معاشتبه كتر مانتا تجارة دا إلهي هذا قيني دحمرتي واتكا معاشتي مرقاس أبو دحداح نبي مؤيمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله جيتك تمرتاها إهبنا ضدون يسوان كيني جيتك تمرت منكي وسكديني جنة كويا لئيب اللنقاب مرقاب نبي كويري كم من عدق رداه لأبي الدحداح في الجنة إمسا إلهي ودياري جيدت تمرة وإنتي مريه بسلامين أي نقدين بوشامة أي نقدين وجنة كويا لا أي إلهي أبو الدحداح ودياري ورسول كويري جيت تمرة وجنة كويا لنك اللهم بلنقادي ما دعي كرتا يساقوا نارين وقالوا يا ما يساقوا جنة وقالوا يا وإنك جيت تمرة اللهم بلنقادي بمعنى يساقوا أهل الجنة مرقى صحابته وحي هايين إن درقلته هايين ورمحي هايين إن درقلت إنك من درقلت محاول تقنن كوها يا الله شغية من درقلت يكون صلاة من تكرر سياسة كهلا سياسة صلاة تارك الصلاة ما قاعدوا فريسان هبين يمالين وحن لون تربو كشكين وعدتي ساعد هو اللوبي كام الصومال منتقانا خبير إن درقرد وانك نفتي سيقانا وحن نفتا هو ناسا وين أدقرتا وحن ربك هو ناسا وين أدقرتا وحن ريركا هو ناسا وين أدقرتا وحن ددكا هو ناسا وين أدقرتا وحن دلكا هو ناسا وين أدقرتا هبتدا الدل أولية هي هبتدا هو ناسا الدل أولية هي وددكيسا إن درقرد وانك ددكيسا وناجيه وددكيسا كشغية إن درقرد وانك ددك إصلاحه كشغية وانك دينته ومدى برايا ومعلنك قرآن ددك برايا وداعيك ومدى دح سودا وعالمك الربانيك مسجدك دح فديا ومدى إلهي كحرايا وداعيك متجولك جولينايا تولة ميغا انتو ريرير ودلتكو ددك إلهي كحرايا كاسا إن درقردا كاسا مستقبلك ودد كيسا هي مستقبلك مجتمع عيسى حدثا وكشغينايا الله يمد بداف صلاة العشاء بالله قلي مساجدنا نوسكو ده هو هذا كنا وان مقليني صلاتنا والله قلي إنه دين تي دعوة يا خير كشغيا وديار هذا المرتدي إن شاء الله هذا إن النفس هذا إصلاح الساعة إن درجات كونك النفتي سواء يكون إصلاح الساعة قلنا إن درجته هو حويان وانك غير كيس قويس كيس الدين تي أخلاق وناس فطر بيديا إن درجات هو حويان وانك مجتمع عيسى دتك دلك سكون نول إلهي يا رسول عيسى كسو حرايا دتك هجا جنايا كاسا إن درجات صحابة مركا إن درجات بهايا آخرة يكون حسابتنا وينه أدوية ما بعركين بأدوية وحيوار كيين إن يتاهي مارك تاني يكون ملقاد مال آخرة دارتي هذا لقاسي بسنة يكون أركيين مركا إن شاء الله تعالى كو دين تودا قبصدا دين تودا كشغايا دعوة يا خير كأمة وبيرا نفتو ذا الصلاح يا الله ينقدمه إن شاء الله سعوديار منين الله ينقوا أنفعه هذه اللي نقدر البديت إن الوقت ينقالكم بحننا سعوديار منين وإذا استنفرتم فانفروا نبي إن يري هذه اللي نقدر بو إن دين توبة هذا بنبي ودين توبة مركز سعوديار إن شاء الله هبين دمنا جمعة ومركزك كل في دينه ده مركزك كجرا كسوق قبل إن شاء الله دم بيجنا الله هداف دم بيجا والدين تنا الله هداف دين تا الله إنه معاني مرل كنا الله شافيه موتات كنا الله هون حريست أمن إيمانك الله إنه زياديو ضد بدن ولا له إنه دعاء يا جري قف اللي قفي قربة قربة الله كقاعدو قال يرى الجردو كان جور حلال الله سيو
gabdhaha guurdoogana wiilal wanaagsan oo diin iyo tabiicad wanaagsan Allah ku hagaajiyo maciishadan ciriiriga Allah inooga saaro muslimiinta qulubtoodana Allah mideeyo muwaafiqiin midnimana Allah ina siiyo shaqaale diinada la aqbal Allah inaga dhigo waalidiinteena wixii dhintay xaqna qul Allah u naxariisto innagana Allah inooga daba naxariisto sallallahu ala nabiyina Muhammad